ay kaloo la xadi rabo mar dhow. adiga ex-kaada arooskiisa ma tegi lahayd mise ex-kaada arooskeeda ma tegi lahayd? Sida ku kala tagteenbu ha ahaato xumaan iyo ficnaansho, ma naftaada u qori lahayd maanta qofaa la socotay arooskooda inaad tagto? Wadnaha dadka qaar ma dhagaxa laga hagaajiyey? Gabadhii maalin hore tagtay arooskii oo internetka jabiyey, arooska social media jabiyey, gabadhii tagtay maxay ka soo qaaday, maxay ka soo faa'iiday? Wakaa waa aragtaa maanta qofkii aan shalay la socotay maanta arooskiisii. Adiga xanuun la daaweyni karin maxaad iskugu keenaysaa? Sidee u ogolaatay gabadhaas mise hataa asxaabteedii sidee oola fikireen inay tagto arooskii boqorada style-ka iyo heykal? Calool xanuun ah laga soo qaadaa iska wadhaaf bu kuwii tageen oo dadkii caadiga ahayd war dadkii hata crush ku ahaayeen maalintaas way xanuusteen. Social media aroos noocan weli lama arag. Aroos fanaaniintii weynaa magaca lahaa imaaday, hees kale nooc la qaaday, malaayiin dollar ku baxday. Adigoo ex iska dhaaf dadkii crush ku ahaa oo daawanaya oo ku xirnaa oo jacayl yar u qabay ayaa wala xanuustayna adigoo qofkan la socotay jeclayd sidee u tagtay? Gabadhaas way adag tahay ani wadno nooca ma lahi. Adiga i daawanayso qofkii aad la badashalay sidee ku kala tagteen? Sida ku kala tagteenbu sidee ex-kaadii qofaa la socotay arooskiisa mise arooskeeda u tegaysaa? Qaarkiin maxaa ku qaracatiin oo ku cashiisiin oo ku qadaysiin? Sirtaas ayaan ogaan lahaa. Aroosaa og tahay dunida dhan ayaa laga hadlayaa, qof walba wuu soo saaranayaa. Wadnaha ku tagtay maxaa ku siiyey? Midda kale gabdhaha soo ma ahayn jirin gabar kor isku qaadaysa. Gabdhahan dambe maalimahan waxaa arkaysaa qof caadi uu uga tagay oo gabar kale la baashaalaya oo dunida dhan laga jecel yahay. Adi weli waxaa leedahay waa rajo leedahay waxaad u malaynaysaa qofkaas inuu ku soo noqonayo. Hoos ayaan isku dhigaynaa, beerkaan dhulka dhigaynaa sida camal nimankii dhan oo dhammaadeen. Nimankan may dhammaanin way buuxaan. Nimanka Soomaalida waa nimanka dunida ugu tarin badan. Gabdhaha markii laga tago beerka caloosha saaranayaan. Filimada Hindiga ayay badsadeen sababta maxaa ku keentay qof ex-kaada inay arooskiisa imaato? Maxaa sugaysaa inay arooska dhan la istaajiyo? Maxaa sugaysay inay arooska dhan la istaajiyo sida filimada Hindiga miyaad sugaysay? Filimada Hindiga waa aragteen gabadha iyo wiilka markay isla socon jireen hadday midkooda mid aroos galaan mid kale way imaanaysaa arooska waa la joojinayaa. Saaxiibtaada maxay sugaysay in arooskan dhan malaayiin dollar laga bixiyey in la istaajiyo? Waa aragtay maanta heykal Maria wuxuu u sameynayo hadday qufacdo wax walbay rabto maasha Allah lugaheeda wuu soo dhigayaa waa qiime ay isku yeeshay. Gabdhahay daawanayo inta u badan markaan qof jeclaano laciif ayaan noqonnaa. Maraan soo ogaaday oo searching harta ku sameeyay oo raadiyay sidee qof uu kugu waalan karaa ee adima ooyaane indhaha qof kale saari karin. Wuxuu ahaa midda koowaad oo qofkaasi dhahay adeeg muuji is adkeey. Adiga is adkee ha fudaanin qof walba mar walba hayene iyo kaa soo bixin. War mar hataa aad rabto no hadhihin muxuu ahaa yes hadhihin. Mararka qaar adoo caloosha ku xanuunayso no dheh is adkee. Markaas qofka wuxuu arkayaa inaad leedahay ra'yi
inaad cabsaneyn oo qof ad adag tahay. Laakiin qofka waa bini'aadan. Mostly waxa xiriiraha u kala go'ayan waxaa mid ka mid ah ka xiriirka sameynaya gabadha mise wiilka. Mid ayaa jilac noqonaysa. Ragga aan ii sheego sir, anaga gabdhaha ma jecelno nin wax walba aan dhahna haye dhah. Mararka qaar nagu adkee. Haddaan ku dhahno waxaas rabnaa maya nagu dhahdo. Xanuunka yar waxaan u dareemnaa inaad nin rageed tahay. Laakiin mar walba haye. Waxaan ka soo qaadaynaa qof jilacsan. Gabdhaha i daawanaya ma been ba. War u fiirso mar walba gabar nin gacanta ku qabatay haddaa aragto waa gabar ad adag. Waa gabar uu og yahay gabadhaas waxyaalahaas kama dheesho. Waxyaalaha kama ciyaarto. Gabdha waxaa arkaysaa ninka wuu khiyaanaya, wuxuu rabo sameynaya. Dan iyo xaajo kagama dhiganayaan. Way iska cafinayaan. Asagana wuxuu u maleynayaa. Asagana wuxuu u qaadanayaa gabadha inay jilacsan tahay oo hadalkiisa mooyee hadal kale maraynin. Gabdhaha i daawanayaan oo maanta igu xiran. Jacaylka oo wax jiray. Waalidiinteen, awoowayaasheen, hooyooyinkeen mar walba waxay ku dhahaan nin hoos iskugu dhigin. War xitaa haddaad si walba laciif u tahay ha tusin la laciif tahay. Ninka kali ma ah waa bini'aadan dhan. Maanta maalin bini'aadan ay ku ogaadaan. Hal xidid ka ogaadaan inaad jilacsan tahay. Oo halkaa wax haddaa laga qaada dhulka ku dhacayso way kugu tumanayaan. Gabdhaha arkaysa nimanka adag haystaan sida maasha Allah boqorada. Meel ayay soo saartay. Waa aragtay gabadhaas. Wax walbay rabto maanta. Albaabkii u taagan tahay. Weydii inta gabdhaad oo maanta rag qurux badan oo maasha Allah is haysta wataan. Aad weydii sirta maxaa waaye xiriirka waxay ku dhahayaan is adkee. Mar walba haddaa ismashquuli hal wuxiiso. Haddaa mar walba haye dhahdo qofku wuu kugu cajisaya. Qofka challenge ayaa la siiyaa. Nimanka fiicna waa la qaatay waa aragtay. Hadda kuu soo haray adiga kuu joogo. Maxaa leedahay? Maxaa hoos iskugu dhigaysaa? Adigoo gabar Ilaahay quruxda ku siiyey. Sidee ex-kaada arooskiisa u tagi kartaa? Maxaad sugaysay? Farxad noocee sugaysay? Weligaa ma aragtay qof ex-kiisa arooskiisa tagay? Commentiga iyo la soo wadaag.